السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا حبوني دي لهان تيم داوديال جوبكستي مeel kasto naga daawanaysaan halkani waa Real TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa waa marka la yaaminta nooga barateen war wixii guud ahaan naga soo gaaray dadweynaha Soomaalidu degtiyo guud ahaan caalamka warkaamintan waxay dila socodsiin doonaa hadduu ay baraali ka noqdo anigoo Ridwaan Xuseen Yuusuf Ridwaan Bukhariya qodobada ugu doorka roolad warka ku daawan doontaana waxaa kamid daawadayaal telefishinka Real ayaa waxa uu booqday dadweynihii dhawaanay dawladda hoose magaalada Hargeysa ka rartay xaafadda dhaamka ee magaalada Hargeysa dadkaasi ayaa cabasho ka muujiyay halka ay dawladda hoose u rartay xisbiga talada dalka haya kulmiye ayaa ka hadlay shaqaaqadii dhawaan ku dhex martay beelaha walaalaha deegaanka Ceelaf Weyn sidoo kale waxa uu baaqo diray guud ahaan shacabka Soomaaliland gudoomiyaha garabka la baxay badbaadada xisbiga mucaaradka wadani ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirintu ku dhex martay deegaanka Ceelaf Weyn siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye ayaa isaguna xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ka eedeeyay inay ka gaabisay colaadda soo noqnoqotay ee deegaanka Ceelaf Weyn daawadayaal sidoo kale waxaan warbixin idinka diyaarinay xuska 18 May ee loo soo rogay 15 May iyo sida ay shacabka reer Hargeysa ugu diyaar garoobeen daawadayaal sidoo kale wararkan dunida idinka haynana dawladda Kenya ayaa waxay sharci darro ku sheegtay dhisidda biyo xidheen dad badan ay ku dhinteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia ayaa laga mamnuucay in isaga iyo xaaskiisuba ka dhoofaan dalkaasi waa tahay daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka rool warkayga imikii haatan isu diyaariya qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan